wararka ka imaanaya deegaana ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay sheegayaan in isgaarsiinta aysan shaqaynayn iyadoo dhinaca kaleetana ay jiraan dhaqdhaqaaqyo milatari oo ka socda wadada u dhexaysa baydhabo iyo buurhakaba ilaa iyo haatan ma caddo sababta shaqadii isgaarsiinta ay hakadka ugu timid hase yeeshee dhinaca kale ilaa dhinaca amniga ayaa xaqiijiyey in xiriiro aan la sameynay kadib ay arrintani ku lug leeyihiin ciidamada maamulka iyo kuwa ethoobiyaanka ee ka howlgala halkaasi ee amisom ku jooga maalintii shalay aheyd ayaa qarax ka dhacay deegaanka lugbahare oo ku dhow magaalada buurhakaba waxaa ku dhintay askar ka tirsan ciidamo ethoobiyaana sida dhinaca amniga ay u sheegeen ilo wareedyo ah v o e da saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qiyaastii ay ku dhaawacmeen halkaasi 3 ka mid a ciidamada etoobiyaanka ah ciidamada etoobiyaanka la bartilmaameedsaday ayaa ka yimid dhinaca buurhakabo waxaana la sheegay in ay maanta u suurta gashay in ay safarkooda sii wataan kadib qaraxaasi shalay galab ku qabsada halkaasi turkiga ayaa ku gacan seeray cadaadiska caalamiga ee looga dalbanayo inuu joojiyo howlgalka militariga ka dhanka kurdiyiinta ee ciidamadeedu ay ka wadaan waqooyiga Syria. Dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Syria ku taala ee Ras Al Ain, iyadoo ciidamada kurdiyiintu ay isku dayayaan in ay sii haystaan magaalada iskana caabiyaan ciidamada kale ee Syria oo uu Turkigu taageero. Wariye ka tirsan AFP ayaa sheegay in dagaalka magaalada uu weli socdo, inkastoo Ankara ay dhowr mar sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalada. tan iyo markii dagaalka uu bilowday 9 Oktoobar, ciidamada Turkigu uu taageero ayaa qabsaday in ka badan 100 kilomitir oo dhulka xuduudda ah. hase yeeshee Ras Al Ain iyo Sirikani ayaan weli gacanta u soo gelin ciidankaas. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wariyaasha u sheegay in ay caalamku leeyihiin inay xabadda joojiyaan, balse waxa uu tilmaamay in weligooda xabadda aysan joojin doonin. waxa uu yidhi isagoo saxaafadda la hadlayay, insha allah waxaan dhowaan gacanta ku dhigi doonaa dhul ku teedsan Manbij ilaa iyo xuduudeena Ciraaq. howlgalkan ayaa taageero ballaaran ka haysta gudaha Turkiga, halkaasi oo dagaal jabhadaysan oo sannado badan ay ka wadeen kurdiyiinta dalkaasi ay ku dhinteen kumanaan qof. dibadbaxyada siyaasadeed ee 4 bilood jirsaday ee ka socda Hong Kong ayaa waxa ay gaareen kalfadhiyada baarlamaanka ee sharci dejinta halkaasi Arbacada maanta ah, iyadoo hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ay ku qayliyeen xildhibaanada dimuqraadiyiinta raacsan, islamarkaasina ay taasi soo yaraysay amaba ay soo afjartay khudbadeedii. dibadbaxyada ayaa bilowday kadib markii hogaamiyahan dabka badani uu ku shidan yahay ay soo gashay gudaha dhismaha baarlamaanka, islamarkaasina sharci dejiyaasha dimuqraadi doonka ah ayaa waxa ay iyagu kor u lulayeen sawiro lamb oo gacmaheeda dhiig uu ka da-aya ah. cambaareyntan ayaa waxa ay soo jiidatay dhammaanba dareenka xildhibaanadii fadhiyay kalfadhiga, iyadoo laamna ay warka sii wadi weysay, waxaana lagu qasbay inay daqiiqado kadib ay ka degto halkii ay ka waday khudbadda, waxaana xoogaa yar ay gadaal u degtay. kadibna markii ay ku soo noqotay isla goobtii khudbadda ay ka waday ayaa waxaa sii xoogaystay buuqa iyo dibadbaxa iyo sawaxanka gudaha baarlamaanka ka yeerayay. gudoomiyaha golahaasi ayaa markii dambe waxa uu qaabeeyey habkii kulanka. Mrs Lam ayaa khudbadeedii mar kale TV-ga ka akhrisay maadaama baarlamaanka gudihiisa looga buuqay. 12 musharax oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dood xalay isaga hor yimid, kuwaas oo haddan ugu jira inay meesha ka saaraan madaxweyne Trump doorashada sanadka 2020. waxay ku eedeeyeen Trump inuu sameynayo siyaasado khaldan, iyadoo dimuqraadiyiintu ay wadaan su'aalo weydiin la xiriirta in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump. hadalkii furitaanka dooda uu ka jeediyey madasha madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, kana mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee laga yaabo in Trump uu wajaho, ayaa madaxweynaha ku tilmaamay in uu yahay nin ugu musuqmaasuq badan taariikhda dalka Mareykanka. Senator Elizabeth Warren oo ka socota gobolka Massachusetts, kana mid ah dadka ugu horeeya raay ururinta laga dhex sameeyey xisbiga dimuqraadiga, ayaa sheegtay in mararka qaar ay jiraan waxyaabo ka weyn siyaasadda. waxay Trump ku eedeysay inuu jabiyey sharciga, waxaana ay intaasi ku dartay inaysan jirin cid sharciga ka sarreysa oo ay mansab hadda tahay in mansabka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xayiraadii ka qaaday xorriyadiisana u soo celiyey siyaasiga Muuse Cali Jaamac
oo dhowr maalin ka hor ay xirtay laguna xiray saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso kadib markii garsooraha puntland ay ku eedeeyeen inuu aflagaado u geystay maamulka. haddaba faadime yaasiin jaamac ayaa maxkamadeyntaasi goobjoog ka ahayd. warbixintan ayayna nooga soo dirtay boosaaso. maalintii labaad ayaa la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari siyaasi muuse cali jaamac oo muddo 3 cisho ah ku xiraa saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso. eedayn iyo istifaac kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac waxa uu ku dhawaaqay xukun ah in siyaasi muuse cali jaamac ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin xariga, hase ahaatee ay maxkamaddu cafis u fidisay iyadoo loo eegayo da'da iyo dhinaca caafimaadka muuse. maxkamaddu markay aragtay eedda xeraalinta iyo difaaca qareenka iyo eedaysanaha, markay aragtay caddaynta la hor keenay, markay aragtay qiraalka muuse siduu uu warbixiyey, markay u caddaatay in aan la keenin wax caddayn ah oo lid ku ah sababta la sheegay oo lagu ilhaameeyey garsoorka, iyadoo eegaysa duruufaha jira, qiimaynaysa culayska dacwadda, caddaymaha iyo jawaabaha la bixinayo, waxay go'aan ku gaadhay sidan soo socota. maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka 269 oo xarigiisu ilaa 3 sano gaarayo, faldambiyeedkaasna uu cuskan yahay, waafaqsan yahay qodobku, waxay uga soo qaaday 2 sano xariga. waxayse maxkamaddu tixgelisay codsiga qareenka, duruufaha jira awgood, dhinaca da'da iyo xagga caafimaadka. waxay maxkamaddu awood u yeelatay inay qaadato ama ka aamusto 269 oo ay qaadato, tixgeliso 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo sheegaya dhinaca da'da in ay maxkamaddu ka cafin karto xukunka ku dhacay mar qura. faldambiyeedkaas oo uu galay muuse cali jaamac, maxkamaddu waxay waafajisay qodobka 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna cafisay markii uu xaqa u lahaa iyadoo loo sabaynayo dhinaca da'da iyo caafimaadka. maxkamadduna xorriyadiisa u celisay. wabilaahi towfiiq. siyaasi muuse cali jaamac ayaa si weyn u soo dhoweeyey go'aanka maxkamaddu ay cafiska ugu fidisay, isagoo maxkamadda horteeda ka sheegay in dhaliishiisu ay ahayd toosin. aad ugu faraxsanahay in xorriyaddaydii dib laygu soo ceshay, taasoo ahayd xaq dastuuriya oo aan leeyahay, waana ku faraxsanahay. waana u mahad celinayaa maxaa la dhahaa garsoorka, xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba sida ay xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen. aniguna waxaan caddaynayaa in iyagaba aan uga lehjeclo badnahay dalkayga. arrintuna waxay ahayd arrin toosinah oo dhaliilah oo la doonaya in dalka la hagaajo, qaladaadka jirana la saxo, laakiin ma ahay nin dembiilaha oo dembi gala ama u bareera, mana u samaysnay aqoonta iyo da'da iyo waayo aragnimada ay diidaysa. waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa kuna faraxsanahay in xorriyaddayda aan dib u helo. muuse cali jaamac ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari waxa ay ku soo eedaysay qodob ka mid ah biyaan ay ku dhaliilayeen maamulka puntland qaar ka mid ah odayaasha gobolka bari ee magaalada boosaaso. hase ahaatee waxaa si gaar ah loogu eedeeyey muuse in garsoorka puntland uu u gafay. faadime yaasiin jaamac, VOA, boosaaso.